Assalaamu calaykum. Walaal ma doonaysaa ducadaada in la aqbalo? Dad badani way ducaystaan oo way dhammaystiraan arkaanta ducada, laakiinse khalad yar ay galaan ayaa looga joojiyaa ducada. Waa khasaare run ahaantii. Tusaale, maxaa ka mid ah khaladaadka? Waxaa ka mid ah inuu qofku hore isku dhiibo ama niyad jabo. Qofku Ilaahay wuu baryayaa, haddii ay ducadu ka raagtana waa uu isdhiibayaa. Sabab ayaad iskaga daysay allabarigii inaad sii wado walaal. Ducada in la aqbalo iyo in aan la aqbalin, taasi Ilaahay bay ku xidhan tahay. Ma og tahay walaal, Nabiyullaahi Yacquub calayhi salaam markii uu waayey wiilkiisa Yuusuf calayhi salaam inta uu ka maqnaa? Imise ayaad u malaynaysaa walaal adigay daawanayo? Culimmada qaarkood waxa ay yidhaahdaan 40 sano isagoo Ilaahay baryaya oo weydiisanaya inuu wiilkiisa u soo celiyo. Nabiyullaahi Yacquub waa uu murugooday, waana uu ooyey, waana uu indhabeelay. Ogow walaal, cidda Ilaahay baryayay waxa uu ahaa Nabiyullaahi Yacquub oo ahaa noolihii ugu khayr badnaa waqtiga. Su-aashu waxa weeye, aniga iyo adigay daawanayo yaynu nahay? Walaal, waxba ma nihin. Haddaba maxay ducadu uga raagtay Nabiyullaahi Yacquub inuu helo wiilkiisa? Sababtu waxa weeye khayrka ay helayaan dad badan oo uu Nebi Yuusuf calayhi salaam wax u qaban doono inta uu ka maqnaa aabihii, sida inuu diinta ugu yeedho, inuu u fasiro riyadii uu arkay boqor, inuu isagu boqor ka noqdo. Inta aynu soo sheegnay ayaa ka khayr badan hal khayr oo ah inuu aabbo helo wiilkiisa ka lumay, oo hadduu yahay qofkaasi mid ka khayr badan kumaan kun oo qof. Walaal, ha degdegin. Ogow ducadu inay raagi karto, taasoo ay xigmadu ku jirto walaal raagitaankeeda. Waxaa laga yaabaa in mar aynu dhib xooga nahayso inaan xoog u ducaysano oon xoog u barino Ilaahay, laakiinse ducadu ay naga raagto. Dabadeedna haddii ay ducadaasi naga raagto inaan niyad jabno, ogow marnaba ducadaasi meel cidlaha kuma dhici doonto walaal. waxa aad khasaaraysaa ma jiro, oo waayo ducadu maaha keliyaata inaad heshid waxaad rabtay. Ducadu waxay leedahay fawaa'id badan ama faa'iidooyin badan. Waxaa ka mid ah in darajadaada kor lagu qaado, waxaa ka mid ah in xasanaadka lagu biiriyo, in dembiyadaada lagaga dhaafo, iyo weliba inuu Ilaahay ka raali ahaado. Ogow walaal, ducaduna waxa weeye ducaahu waa cibaada. Waxaan kaga tegayaa walaashay ama walaalkayo inaan Ilaahay ka cabsano.